مش كمان تا daawadayaal maxaad ka taqaanaa shakhsiyaad baraha bulshada ka caana siba gaaraha Facebook iyo YouTube-ka haddaba yaad isleedahay talow yuu noqon doonaa ama isleedahay qofkaas waabad uga shakiyaysaa in badan oo idinka midi kollay maqashay codkiisa haddii ay aragtay sidiisana u baahi qaba inay maruun halacsato ishu ay taswiir isagu leeyahay aragto shakhsiyaadkaas oo lagu magacaabo wareer gooye haddaba maxaad ka taqaanaa wareer gooye waxa uu yahay شرما بو ينينا داس إفري نايس مررك قار نو بروبلم هداد مقشي تاسناو إلا إيك هاستا نيني مدحاي حنوني ينيني أو جعيل كده شرما بوي كله شرما بوي أديقان كوا مني هدا آد إهل كيقوا أفقال وليبا آدن يواه أويويوي أنناقا وحرقنا haddaba wareer gooye waxa uu bulshada kula wadaagaa bartiisa Facebook iyo YouTube-ka kaasoo reaction ka soo bixiya dadka caanka ah siiba fanaaniinta iyo wariyaasha haddaba sii daawo barnaamijkan oo la wadaag si ay u ogaadaan dadka asxaabta ah ee ka yaqaana wareer gooye waxa uu yahay wareer gooye waa shakhsiyad caan ah lagana yaabaa haddaad aragto muuqiisa inay wuxuun qalbigaaga ku soo dhici karto sidoo kale waxaad barnaamijkan ka ogaan doontaa sababihii dhowaan lagu xidhay magaalada Hargeysa iyo sababta uu social media isaga qariyo sawiradiisa haddaba wareer gooye magaciisa saxda ah waa Cabdikariin Maxamuud Cabdilaahi waxaanu ku soo jeedaa gobolka Togdheer halkaasoo waxbarashadiisa uu ku dhamaystay magaalada Burco imikana saldhiga uu yaalo magaalada Hargeysa ku xayeysiiso goobaha ganacsi Duriye Films Minnesota on the beat. Let's go. DJ Minnesota. haddaba shakhsigan qariya sawiradiisa ee lagu magacaabo wareer gooye ayaa lagu xidhay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa taasoo looga shaki qabay inuu yahay argagixisnimo sababta uu qariyo sawiradiisa halkaas oo lagu soo xidhay wareer gooye saacado doora uu xidhnaa wareer gooye shacabkiisa waxa uu tilmaamay inaanay waxba haba yaraatee jirin waa sida uu wareer gooye fariskiisa u sheegay waana sababta ku kaliftay inuu sawiradiisa social media keeno taasoo social media markii hore sawirada leeyihiin oo adeegsan jiray dadkana ku majahabaabin jiray waxay xilligu isa soo gura dadna reaction laga bixiyo oo laga faalloodo taariikhdooda iyo waxyaabaha ay dadka kaga duwan yihiin ee bulshada ugu soo dhigi jiray wareer gooye taasoo uu dadka kula wadaagi jiray xogtooda baraha bulshada siba gaar ahaan meelaha uu ka isticmaalo wareer gooye ayaa imika gaadhay dhabtii sida uu geeri lahaa sawiradiisa social media